بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما ذو هاتي وحن كسر حجرني عشرة waxaan soo qaadanay dhowr cashir waan soo qaadanay waxaan maraynaa cashirka qaybta toddobaad baan maraynay mowduuca toddobaad waxaan soo qaadanay ilaa 6 mowduuc mowduuca toddobaadna wuxuu ahaa did tawxiid did tawxiidi tawxiidka lidkiisa marka kalimadan waa tawxiidku waxa lid ku ama tawxiid ka soo horjeeda oo asay tawxiidka ay meel ku kulmi karin oo haday isku yimaadaan mid baxayo aan is ogolaanaynin xerar isku keeni karin way bimaana waxa way islaamnimo iyo gaalnimo meel islaama qabanayaan islaama galayaan marka lagu leeyahay waxaan tawxiidka lid ku yihiin bimaana waxa laga wadaa waxa kani islaamka bay lid ku yihiin waxa kale oo meesha ka dhalanaya iyadana aad ogaataa in labadaba aan isku haysan karin oo ma taqaanaa midigi bidxa lagu kala haysan karin haduu tawxiid yimaado shirki meesha ma oolaya waa baxaya hadduu shirki yimaadana tawxiid ma jirayo labadaas marka laba is wadanaya ma aha bimaana waxa weyn isqabanmaysa inuu qofku ilaahay waxido oo qof muwaxid ilaahay kaliya caabudayo uu noqdo haddana isla markaa uu mushrik noqdo Allah qeyrkii caabudayo taas ma qabanayso marka waxaan u dhaadhacayaa cashirkii baan u dhaadhacayaa wuxuu yiri did tawxiidka lidkiisu ashirku way waa shirkiga wiilo wadaajinta iyadoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadada uu ku lahaa ciyaadan billah la wadaajiyo way وهو 3 أنواع وانا 3 نوع شركها شرك أكبر شرك وين وشرك أصغر شرك ير وشرك خفي شرك قرصان خفي وواحد قرصان وي marka midku u horeeyo wax lagu gaalo marka midku u horeeyo shirka akbarka ah weeyaan midka qofka uu sameeyo asoo ka toobad keenin uu ku dhinto uu naar ku galayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ku yiri inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannah wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun la in ashrakta la yahbatana 'amaluka wa la takuna min al-khasirin marka balillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin waxaa marka inta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta nooga digayo shirkigaas akbarka ah waa khutuura iyo qatar weyn oo qofka noloshiisi mustaqbalkiisi wuxuu ku fikiraa dhama baabeynayso haduu shirkiga akbarka ah qofka ku dhinta soo ka toobad keenin marka wuxuu ka bilaabaa shirkul akbar shirkiga weyn la yaghfiruhu Allah ilaahi ma dhaafo wala yaqbalu man aqbala ma'ahu ma'i shirkigaas amalan saalihan amal saalih ah ilaahi ma aqbalayo soo shirkiga wata qofka marka soo shirkiga wata amal saalih ma sameyn karaa laakiin maqbuul ma aha isagu waa moodi karaa inuu amalkan laga aqbalayo xaq ilaahay laga aqbalayo quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri innahum muttakhadhu shayaatiina awliya min duunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun shayaatiinta bay xigta ka dhigtaan tol iyo qaraabo ka yeesheen ayuu mooday inay hanuunsan yihiin caamilatu naasiba tasla naaran xaamiya nafda daalayso oo waxa weeye cibaado ku tacabaysa haddana naar olaysa galaysa وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحي حق إلهي ما هو حساب تميين أجر وين هل الدنيا لكن سبدل كذا صباح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهمت ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مما أن به وإن أصابه شر انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ما فهمت دلائشاas oo dhan waxayna tusinayaan qofka ibn aadanka inuu khiyaali iska dhaadhicin karo oo is oran karo qof muslimaad tahay waad soo xajiday waad soontay sadaqad la baxday waad xajiday waxaas soo sameysay waxaas oo dhan wax ilaahay raali ka yahay laakiin si waxaad ogaataa waxa iyaga ah hadaad la timaado wixii baabi'in lahaa waxa weeyaan waxa kama jiraan waxa soo shaqaysatay waxaan ku soo qaadanay nawaaqidul islaam markaan mareynay in mataqaana sidii weysada ay u burto oo weysada ay kaaga buri karto oo salaada ay u buri karto in islaamkana uu u buri karo hadii la yimaado wixii burinay
hagaag marka wuxuu yidhi in allaha allah laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in lala wadaajiyo oo dunuubtaas oo shirkiga ah kufriga in ilaahay lala wadaajiyo ma dhaafo wayakfiru wuxuu dhaafaa maa duuna daalika wixii shirkiga ka sokeeya waxaana loo dhaafaa waa lima yashaa ciduu doono baa loo dhaafaa cid walba marka xataa haddaad dunuub ku dhimato oo kabaa'ir oo shirki ka sokaysaad ku dhimato waxaa weeyaan garantii ma haysatid in lagu cafinayo inaan lagu cafinayn waa hawl ilaahay u taala taxta mashii'ati illahi ahlu ciid baad gelaysa dadkii ilaahay u goodiyey oo naarta loogu goodiyey oo hadduu doonan ilaahay naarta ku idbin karo haddii la doonana la cafin karo baad ka mid noqonaysaa haddaad kabaa'ir la dhimatood ilaahay la hortagto laakiinse shirkiga akbarka isaga rajo u leeyahay ma jirto qofka hadduu ku dhinto allah subhana wataala wuxuu yidhi waman yushrik billaahi qofka ilaahay la wadaajiya faqad dalla waa lumay dalaalan baadi oo baciidan fog weeyaan xaqa ka fog baciidan bucdan kabiiran cani ilxaqi weeyaan baadi xaqa ka fog oo meel xaqa looga soo noqdo aanan lahayn mar haddii lagu dhinto uu qofka marka taqaanaa ku dhex jiraa wa qaala subxaanahu allah wuxuu yidhi nasahnaayi laqad kafara way gaaloobeen oo diintii islaamka way ka baxeen aladiina qaaluu kuu yidhi in allaha huwa almasiixu allah waa masiix kuu yidhi ciise ka wadaan ibnu maryama inankii maryame wa qaala almasiixu nabiyullaahi ciise wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow ucbudullaaha allah caabuda oo rabbii rabbigay ah wa rabbukum i rabbigiin ah caabuda ilaahay keligii isaga ilaahnimo ma sheegan ilaahnimo dad uguma yeerayn wuxuu dadku ugu yeeray caqaa'idaas ay ahayd rusushana dhammaantood oo isku diin weeye sharaa'icdu waa ku kala duwanaan karaan laakiinse min nuux laga soo bilaaba ilaa nabiyullaahi maxamed lagu yimaado calayhi salaam calayhi afdalu salaati wasalaam rusushaas dhammaantood waxay ka midaysnaayeen in waxay haystaan ay tahay waxaa weeyaan shareecada islaamka oo ah ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruhu ilaahay keligii caabuda mid kale oo ilaahay subhana watacaala ka soo haray oo aad ku badbaadaysaan cibaadadiisa ma jira wey wuxuu yidhi innahu man yushrik billaahi qofkii ilaahay la wadaajiye cibaadada uu ilaahay ku lahaa la wadaajiyey see loola wadaajin karaa marka cibaadada ilaahay subhana watacaala laba jaanib bay u badan tahay xagga iimaanka oo qofki inuu ilaahay keyrkii baryo ilaahay keyrkii tala saarto ilaahay keyrkii isku halleeyo shardi ka xirto jin caabudo u yeerto waa min baab iimaankiisi qolkaas halkaas oo ku baaba'aya shirkiga akbarkiiba kala waxaa kaloo shirkigu ku imaan karaa tashriiciga qaanuunka inuu qofku wuxuu xeer ka dhiganayo oo sharci uu ka dhiganayo ay noqoto shareecada allah waxaan ahayn ama xeer beegta ha ku socdo ama calmaaniya ha ku socdo ama dimuqraadiya ha ku socdo ama waxaa weeyaan liberalism iyo wax allaala waxay gaalada siirta meeshuu doonaba ha ka galaa taasna waxay noqonaysaa iyadana kufri kale bay noqonaysaa marka wuxuu yidhi faqad xarama allaahu ilaahay waa ka xarimay calayhi dushiisa aljannata wuu ka xarimay oo jannadaas ilaahay subhana watacaala ugu talagalay dadka mu'miniinta ilaahay rumeeyey waxa weeyaan xaaraan bay ka tahay sababtoo ilaahay subhana watacaala way weydiisanayaan maalinta qiyaamaha dadka ahlu iimaanka ah oo jannada ku jira markay arkaan gaaladu waxay odhanayaan an afiiduu calayna min almaai aw mima rasaqakumullah marka in jannada saraysan oo laga fahmaya waana waxa weeyaan waana axaadiista nabina waa sheegayaan qoladaana ay asfal hoose ku jiraan marka muslimka maxay ugu jawaabayaan in allaha xaramahumaa cala alkaafiriin ilaahay gaalada waa ka xarimay bimacnaa meesha waxa yaal gaal dheef kuma laha adduunkaas iska daaqa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi xadiis low kaanat addunya tacdilu cinda allahi hadday adduunyada allah agtii u dhignaan lahayd janaaxa bacuudati garab kaneeco lama saqa minha kaafiran shurbata ma oo kama qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam intii mataqaanaa biyo la kabado qof gaal ah kama cabeen laakiinse adduunyada oo ka liidata allah agtii garab kaneeca ka liidata allah agtii awgeed bay gaalada ugu nooshahay wey garab kaneeca bal qiimaha adigu hadda waxaa weeyaan iib ma galo cunno ma aha waxba kaa dhicin maayo dheef ma leh wax uu yahay oo maanta lagu saasay adduunyadan allah agtii ka tahay allahu akbar ilaahay nagu aafay wuxuu yidhi allah subxaana watacaala waqaala tacaala lisri wuxuu yidhi waqadimnaa waxaan u hormarinay calaa maa camilu waqadimnaa ilaa maa camilu weyaan meesha marka madbacadii baa qaladay waqadimnaa waxaan u hormarinay ilaa maa camilu waxay shaqaysteen oo min camalin camal ahaa
فجعلناه وحن كيالنا هباء بور ومنثورا ولا فرديو ينثر وي وقال سبحانه وتعالى الله يسر لئن أشركت هدي شرك السميسو وهذا الله سبحانه وتعالى غيرك عابده سيادكو عابده بإنه عابده لا يحبطن وحابر يعملك عملك هذا ولا تكونن وحضانيسا من الخاسرين وقال سبحانه الله وحول ولو أشركوا وحال سوتري استدي توان النبي وأنبياء الله كمده ولا سوتريي markaasuu allah yiri walow ashraku haday rususha allah shirki sameyn lahaayeen la xabida waxa ka buri lahaa anuu iga ma kaanu yacmul wixii qabin jireen oo amal khayr ahaba baabi ilaha wixii rususha ilaahay loogu cudur daari waayay oo la yiraahdo dad low sida sameyn lahaayeen amalkiina dhan baabi ilaha dadka ka sokayso loogu cudur daaray waayo marka rususha ilaahay macsuumin min shirki waa ka ilaashayn oo rususha shirki kuma dhacaan oo xaq ilaahay baa laga ilaalin laakiin waxa loo qastay waxay tahay dadkan umadan kale ilaahay way marka shirkiga markuu soo qaxay oo aayaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala ka hadlay noo sheegay isla shirkiga qaybuu leeyahay ilaa afar qaybood buu soo qaybanaya wuxuu yiri shirkul akbar waa shirkiga weyn naarta lagu galay buu ka hadlay arba'atu anwaa' wa afar nooc al-awwal kan koobaad waa shirku dacwa waa shirkiga yeerashada ama gacmaha la dhigto weyn بمعنى مركا الله خيرك وقف يرني وبريا وتلصارني وتضرع ويسد الليل هذا مركا شركي قال لماذا كفر قهوي وحاول دليل قوله تعالى فإذا ركبوا مركا فلان في الفلك دومه دعوا الله بيرتان مخلصين حالا ينكو برحتري له لا الدين عبادتي بريدي ايغو بحتري وبرحتري وكلمة الدين معاني بدن بالله وهويان مصطلح بين الله إذا قاروه وأنا موضوع بنيس الله برت أنت وجاء كتماده فلما نجاهم إلى البر مركو لك إلى يسوع بالبادي إذا هم قرط سيشركون أي لو ذا الجنين عقل حماده مركا لها تقدر يميزها حدي بدي هركو كعي ومتغنى بدي موجودة كعين وأي قطر قالين إلهي كلي يرتين لك إلهي ما لها مياه تسويس ويدين اسمه ويدين maxaa marka mushrikiintaas looga liitaa maanta waxa looga liitaa buu sheegay mushrikiintu markii baddi ku kacday oo waxa weeyaan ciri dhul isku xirmeen oo waxa weeyaan meel loo carar la garan waayay waxay garteen in ilaahay kaliya baryaan oo shirkiga iska dayaan laakiin maanta dadkii jooga balka waran abaar marka ku dhacdo oo waxa weeyaan xoolaha baaba'aan oo meel walba ciq noqoto oo wadooyinka go'aan meeshii la rabay in ilaahay gacmaha loo dhigto maxaa leeyahay UN-ka uu soo gaalay kaniisadaha wax nooga soo gura marka qaaraan kaniisad laga soo ururi soo ilaahay khaaliq abuurtay oo ilaahay dhulka inta la eg oo abuuray uu joogo oo maqlayo oo ku gargaari kara inaad kaniisada tiraahdo qaaraan iga soo aruuriya waxay daliil u tahay inaad faaruq tahay way in qalbigaada maran yahay inaad diin la joogin oo bay daliil u noqonaysaa الثاني كان لبعض وشرك النية وشرك النية نيادة والإرادة الدوريدة والقصد والجودة marka intaas oo la isku daray isku meel bay ku urureen oo isla niyadii bay tagaysaa niyada madax u ah luqada carabiga baabalaaran qofka marka hamigiisa laga hadlayo dooritaankiisa marba qofku waxa ka qaad noqonay iraadada saga ku jirta iyo hamigiisa iyo dooritaankiisa baa wuxuu sameeyaa shay walba wuxuu ka hormarinayaa iraadadiisa halkaasna marka waxa uu imaanaa qof naftiisa caabuday oo noqonaya afrayta man ittakhada ilaahu hawaahu afa anta takuna alayhi wakiilan quraanka ku aragto qof naftiisa ka ilaahay yeesho naftiisa lagu ilaahay yeesha hawada sadraacaysa way tay ida jacashay baa loo wadaya amarkeeda amar kasta ida ka sareysa la oranay wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya qofka doonaya noloshan gaaban adduunya waxa loo yiri waxa ka timid dunubi waa dhawaansho waa dhowdahay ma garat wazinataha iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim waxaan u oofineynaa ayagu acmaalahum waxay shaqaysteen fiiha adduunyada dhexdeedii wahum ayaga laa yabkhasuun laga nusqaamin maayo waxay shaqaysteen laga nusqaamin maayo ulaaika kuwaas alladina ku weeye laysa lahum fil aakhirati aakhira ayan u sugnaan ila naar mooyaane
وحبد وحبر ما صنعوا وحي سميين وباطل وحا باطل سل يا بارب باطل ما كانوا يعملوا وحي قبل جيرين marka hadaad aragtin adduunyo badan lagu qubay oo waxa weeye meel walba balaayin u taalo ha u malaynin in ilaahay raalli ka yahay oo ilaahay jecel yahay ha u malayn oo waxa weeyaan uma calaamad uma aha inaad adduunyo badan haysato in ilaahay ku jecel yahay calaamad uma noqonayso sidaas oo kale nin tabcaan aan xoolo haysanin ee bilkiisa la dhacdhacaya soo qaban la dad arag ayadana calaamad uma aha in ilaahay nacab yahay أساس قيب سدحات وشرك طاعة وعمد ugu badan ee maanta jirta weey qofka in uu iska adeeco cid uu adeeco soo sharci ilaahay u eegaynin soo diin u eegaynin asoon u eegaynin waxaan ma macruuf ama munkar asoon u eegaynin oo oranaya waa odagayagi iyo xildhibaankayagi iyo madaxweynihayagi heerkaasay gaaraan ninba hadda koraan sheekaysanay ninka marka xisbigu u ololeynayay xisbiga asagu u ololeynayay baa guuleystay markaasaan ku irbal xaaladda ka waran markaasuu yiri xalay xagga iyagu maadaama ninkayagii soo baxay oo wiilkayagii soo baxay gabdhuhu free bay ahaayeen ma garad waxaa marka halka la gaaray baldeedu meesha ugu qurun badneed baa lagu halala galay cajiib waxa uu daliila ittakhaduu waxay yeesheen أحبارهم علماء ورهبانهم يكون عبادة بدنا سودي سوفيني ماذا يكون جرت فهي أربعة مربية كيشان من دون الله كسوق إنما كان مرك أحبارت الرهبان تلقى هذا أحبارت ونمك يهود علماء ذوي الرهبان تنا والنصارى علماء ذوي لا بد ذوي كردونا يعني مرك قلنا يهود وهاي أنا حق علمي بكرهن مرك الشركة اللي يرهدوا الشركة العقيدة أصنام العابدة يوحى وروريبه وأقويا رأيه laakiin nimanka kirishtaanka ka quraafaad badnaa oo xaq quraafaadka kirishtaanka aad ugu badnaa baa la yiraahdaa maxaa yeelay niman waxay ahayn sidii suufiyada kale u dhaqma way ahayn culimadoodana soomacooyin ay ku jiraan oo cibaadooyin isku laazimiya isa saara qoladan waxay ahayn qolaan ilaahay sharcigiisa ay celinin oo sharciga ilaahay inta meel iska dhigay ay wadaadadooda u banbaxeen say ku bariis ku soo dhacsan lahaayeen oo inta wax qorqoreen ay oranayaan hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalilan ma garat saasay ahayn waqti laakiin si nabi ilaahay ciise ay waxay aamineen inuu saddex ilaah mid yahay waxay yiraahdaan waa saddex waana mid waxaan la fahmi karin ilaahuudka nasaarada iyo markaad dhageysato sheekadooda waxaad fahmaysaa dad iska quraafaad ku nool inay yihiin والمسيح ابن مريم وعابدين وما أمروا لما أمر إلا ليعبدوا إن عابدان مويان إله واحدا إله كليه لا إله إلا حق لو عابد مجر إلا هو الله مويانه سبحانه الله باك النسان عما يشركون وهي لوداجين marka hadii oday beeleed la sameeysto iyo hadii wadaad la sameeysto oo kulli macsiyo ilaahay lagu adeecay ayaga baa caabidiin loo yahay cibaadana ma aha rukuuc sujuud laga hadlay ma tawa taacadi way wa tafsiruha ayada tafsiirkeedana alladii kaasoo la ishkaal fiihi an shaki ishkaal ku jirin وحاويا برضاعة العلماء والعباد وعلماء يعباد الله أدعى في المعصية اللي هو أدعى مركا علماء أي أدعيان وحيلتك عبادة جبابرة لما الطواغيد وجبابرة إن عابدات سا علماء نقضى بين إليه بين لك الشامرك ما يقدر بيك لدعلا لا ما دعاهم إلا يرتي إياهم أيضا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم النبي فسره لعدي بن حاتم الطائي نينكي عدي بن حاتم وها ريطائها ومتقنا النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ قارته هل يسر أنت فيدو أو تصليبة والنبي يقول يمد تبدأ عيدا سو النبي آخرين يمد مركب وحول لسنا نعبدهم يا رسول الله رسول كله ما إنه عابدين منك النبي مركب حقوق شيء تحريم أليس يحلون ما حرم الله له مين إذن حلالين وحي إلهي إذن كحرم إذن بنين waxa ilaahay mataqaana oo san banayn haawir fatilka cibaadatu iyaha cibaadada la caabudo waa taas oo tahliil iyo tahriim waay lasna nacbuduhum bir fadakara lahu nabiga wuxuu u sheegay anna cibaadada taacatuhum fil macsiya inay tahay gardarre lagu adeeco weeyaan kana ugu dambeeya raabic waa shirku maxabba weeyaan maxabada ودليل قوله تعالى ودليل المحبة والجعيل
adoo marka Allah qeyrkii jeclaado wey markaad Allah qeyrkii jeclaatana waxaa ka dhalanaya inaad u tadarrucdo cidda iyada ahayd aad barido isku hadlayso u yeerato shardi ka xirato awlaadda tirada sheekh hebel baan ma wiil baa ii dhashay sheekh hebel shardi ka soo xiranaya qarraf sheekada aad taqaanay wey marka wuxuu yidhi wa min annaasi waxaa ka mid a dadka waxaa ka mid a man yatakhidu qaar yeelanaya min duuni illaahi allah ka suga andaadan kuwa ilaahay feer dhigaan yuxibuuna may jecel yihiin ka xubbillaah sida ilaahay loo jeclaadoo kale way u jecel yihiin waa dadkii shirkigii akbarka ahaa ee dadka caqiidiga ahaa weeyaan marka النوع الثاني من أنواع الشرك نوع لباد أو كم إذا أنواع الشرك هو الشرك الأصغر هل كاسو حنا وصلنا على شرك أكبر كه شرك أصغر فوق هذا مرة أصغر كم هو الرياء وهو الرياء واستوستوس كا وما هو وعمل لله لو سميني أو لو سمين لأجل فلان عمل إلهي درتي لو سعادة من صلاة من صوم من صدقة إلهي درتي لو سميني أو لو سكت لغير الله وي شيخيga xagaas fadhiya ama dadka ay arkaan inaan tukanayo ama jamaacada ku tukanayo wax la mid ah marka shirkigaas dhawaaleeda riyaagana waa istuska weeyaan ودليل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو قفك رجال لقاء ربه لكل كربي فليعمل عملا صالحا حسن يعمل صالح ولا يشرك يسل وذاجن بعبادة ربه أحدا ما يشمرك أحباك مغنها بربه هو بعبادة ربه وين أحد يسل وذاجن ومرك هذا ترجك هذا عمل هذا حوين شرك الرياء يسكا قليل وحنا اللي هذا سوى عملك مرك عنت الله هيو ونقول لي بعد النوع الثاني من الشرك من أنواع الشرك النوع اللبات الثالث النوع الثالث نوع السدحات من أنواع الشرك كما هو شرك خفي شرك غرصون وحنا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الشرك في هذه الأمة شرك أمة تنحذ إذا أخفاه وكقرصويه وكم من دبيب النملة دقائق أما حركات قرايدة السوداء المذو وعلى صفات سوداء ودقح مذو كدر صعود في ظلمة الليل نصعد هبين مقدة قراية مذو إذا ما كانوا بالمذوبات ودقح مذو كدر صعود وهبين قراية اسمها أركسة ساي لهذا وقبل كريم باسنا ما تغنى شرك كاس أنا لهذا وقبل كريم ويمر وشرك خفية وكفارته وعوية قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكسر اللهم إني أعوذ بك وحكاما قال أن أشرك إن كل وذاجي بك هذا شيء وأنا أعلم أنا وأستغفرك وحنك ويدي سنة يا استغفارك ويدي سنة من ذنبك الذي حصل الله أعلم أنا ذنبك أنا وين ذي وقتين إلى ودم داف فانك ويدي سنة يا وين خير بدو ما يرجعني